kulanti wanaagsan saaxiib yaal fashil weyn iyo waliba sidoo kale fadeexa ayaa ka socota qaybo badan oo kamid ah deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya sir la helay waxa ay sheegaysaa in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre intuu ku sugnaa deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo san kaligiisa odayaasha la kulmin iyo waliba sidoo kale odayaasha deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya oo lagu qasbay in kulan kasto ay yeelanayaan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo markaasi garwadeen ka ahaado ama uu la ogaado waxa ay halkaasi ku sheegayaan odayaasha waa la afduubay halkan ay kula wadaagi doona xogta hoose ee aan helnay ama aan ka helnay deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya marabno magaciisa inaan sheegno misana markaasi aan sawirkiisa soo baahino mid kamid ah malaaqiyada deegaanadaasi koonfur galbeed Soomaaliya oo markaasi cabsi dhanka amniga xaqiisa markaasi sawirkiisa aan u baahin kari weynay ayaana rabnaa ama markaasi xog uu ina siiyay inaan halkan idin kula wadaagno maadaama deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay ay ku sugnaayeen wufuud heer sare ah iyagoona markaasi looga hadlayay xaaladda guud ee deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya iyo marxaladaha halkaasi ka jirta odayaasha dhaqanka iyo waliba sidoo kale waxgaradka deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa runtii qaati ka taagan xilliyada kulamada ay yeelanayaan in ay markaasi u heli waayaan xurriyad si ay u hadlaan ama markaasi codkooda ay meel dheer u gaarsiiyaan taasina waa sababta keentay maanta in markaasi malaaqiyada halkaasi ama odayaasha deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ama duubabka ee deegaanadaasi ee codkoodu si markaasi xurriyad ah ay markaasi warbaahinta ula hor imaan laayeen xaqiiqdii xogo hoose oo aan helnay inta badan kuma qanacsana xukunka halkaasi iyo waliba sidoo kale joogitaanka madaxweyne lafta gareen laakiinse xaalado amni iyo waliba sidoo kale cabsi daran oo haysata malaaqiyada deegaanadaasi koonfur galbeed Soomaaliya ayaana markaasi ku qasbaysa in ay markaasi ku fikir ahaadaan ama markaasi ay ku tala ahaadaan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen haddaba maxay yihiin sababaha keentay in waqtigan malaaqiyada si hoose warbaahinta ula xariiraan iyaga oo markaasi inta badan sheegaya ama ka andacoonaya in magacooda iyo muuqooda la baahiyo maadaama xaalad amni u baqayo shakhsiga iyada oo markaasi caqabad weyn ku ah jiritaanka iyo waliba sidoo kale sumcadda nabadoonnimo ama markaasi oday dhaqameedyo iyada oo markaasi deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ay ka yartahay in malaaqiyo ama duubab dhaqan oo markaasi shirar jiraa'id qabta ama ka hadla xaaladda dalka waana sababta keentay in waqtigan markaasi ay warbaahinta si hoose ula xiriiraan si codkooda markaasi meel dheer loo gaarsiyo ama xogta ama rasmiga waxyaabaha halkaasi ka jira ay bulshada ula wadaagaan deegaanada kale marka la joogo waxa la arkaa salaadiin ama waxgarad qaybahooda kala duwan oo ka hadla xaaladda markaasi taagan ama markaasi ka sheekay wax markaasi deegaanka isaga ka jira iyaga oo markaasi wax cabsi aysan qabin haddaba waa su'aasha inta ugu badan ay isweydiinayaan bulshada reer koonfur galbeed Soomaaliya waxyaabaha sababay in waqtigan markaasi ku soo beegmayso xilli markaasi la qorsheynayo in maamulka uu u jiheysto doorasho laakiinse wali si weyn looga cagajiidayo oo aanan si meel loo wada raacin in la qabanayo doorashada iyo in kale laakiinse waqtigan si hoose warbaahinta inay ula xiriiraan iyaga oo markaasi sheegaya caqabadaha culus ee ka haysta sababaha keeni kareedo in codkooda markaasi ay baahiyaan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya run ahaantii waxyaabaha inta badan uu ku fashilmayo ayaa u muuqata in xurriyatul qowlka ama markaasi shakhsiga waxa ku jira uurkiisa oo san banaanka uu keeni kareenin taasina sabab keeni karto ama sabab ay u noqon karto burbur iyo waliba sidoo kale dagaal sokeeye mar kale inuu maamulka markaasi u wajaho hadiise malaaqiyadu sidan warbaahinta mar walba ula xiriiri doonaan waxa si xoogaysan doona ama adkaan doona in markaasi codadkoodu mar kale ay soo muuqdaan ama markaasi warbaahinta toos u soo istaagaan iyaga oo markaasi wax cabsi ah aysan ka qabaynin tani waa sababta keentay in markuu tagay ra'iisul wasaaraha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya loo diiday in si qaas ah kaligiis ula kulmo odayaasha dhaqanka iyo waliba sidoo kale duubabka deegaanadaasi si ay markaasi waxyaabaha uurkooda ku jira ay u baahiyaan ama ay ugu sheegaan ra'iisul wasaaraha waana sababta keentay in markaasi loo ogolaan waayo in kaligooda kulamo gooni ay la qaataan ra'iisul wasaaraha iyo wufuudiisa iyaga oo markaasi kulan walba oo la jiray madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waana tan hadda markaasi keentay in odayaashu qaar ay warbaahinada
qaybaheeda kala duwan ee la xiriiraan iyaga oo markaasi sheegaya in codkoodan aanan la baahinaynin muuqoodana la baahinayn laakiin xogta kaliya ay dhibaan taasina markaasi ay ku sababtay maanta in maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu sabab weyn ugu noqdo in markaasi xuriyatul qowlka madaxa ugu istaagay haddaba goorbee ayay malaaqyada deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya xaqiiqda dhabta ee ka jirta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka hadli doonaan aragtidiina qaybta hoose ee faallada commentiga nagu wadaag